marna ma isweydiisay su'aasha ah maxaan horumar u sameyn lahaa ama waxa laga yaabaa inaad isweydiiso balse aadan jawaab kugu filan u helin haddaba waxa muhiim ah ama laga maarmaan ah inaad ogaato caqabada meesha ay ka haysato waayo tusaale ahaan haddii adigoo jiran aad u timaado dhakhtar caafimaad oo uu ku weydiiyo meelaha aad ka xanuunsanayso oo aadan waxba u sheegin ama ku tiraahdo ma aqaan macquul ma tahay in uu ku daweeyo dhakhtarkaas jawaabtu waa maya haddaba siday taasi macquul u ahayn ayay tanina macquul u ahayn raadi caqabadahaaga waayo qofka kaliya ee heli kara caqabadihiisa waa adiga ma jiro qof kaaga ogaal badan naftaada raadi halka ay kaaga adag tahay xaaladda halka ay wax ka qaldan yihiin raadi si aad daawadaada u hesho waxa kaloo jira qof isagoo og caqabadihiisa aan haddana waxba isbeddel ah samayn ama naftiisa aadayn kaliya ku ekeeya ama naftiisa u cudurdaar sameeya ama u qiil sameeya dabeecadani waa midda ugu halista badan waayo waxaa la noolaanaysaa murugo ugu dambayntii naftaada waxaad gaari doontaa inaad nacdo sababta howlkarnimo la'aanteeda ama caajiskeeda haddaba waxaa fiican inaad wax dhammayso oo aad bilowdo mid kale intii aad naftaada xabsi dhigi lahayd adigoo rajaynaya waxaan macquul ahayn kaba soo qaad haddii uu yahay yoolkayga in aan exaamka heerka waxbarasho noqdo qofka koowaad oo aan waxba akhrin ama maalinba maalinta ka dambaysa aan u dibdhigto casharkayga haddii lagu weydiiyo ma tahay macquul inaan kaalinta koowaad galo waxaad si degdega leedahay maya haddii aan ku weydiiyo sababta waxaad leedahay macquul ma aha waayo wax dadaala ma aadan samayn haddaba siday nolosha horumar ku samayn kartaa adigoon dadaal samayn ama aadan u samrin caqabadaha nolosha horumarku waxa uu ku jiraa inaan fahanno halkaan u socono sidoo kale inaan rabbi u tala saaranno dadaalna la imaan haddaba ma jiraan caqabado noloshaada aad la kulantay oo aad ka baxday ama caqabado ilaa hadda ku haysta oo aad leedahay xalkeeda qaybta commentiga inoogu reeb haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh una sii sheer galay asxaabtaada ammaano Allah